وآدم برد عليه أو إمبيجا غارسا تاونشيب أهانجري وسير كحولها أو أسيستنت مينستر مركي لا سو دورتay حدنا أها majority leaders Kenya aad baan ku soo dhaweynaynaa aadan barado halow dadkan meesha fadhiyo waa ogaadeen laakiin awliyahan buu u baday awliyahan shaki ha ka qabin wuu ku soo dhaweyn walaalimo ka filo tolimo ka filo عثمان أفمرورنا برضه بكل ما الله هذا ما حسنته وعقله سلامي بيجي مدرنا لقى صوت دورتي كل كان آدم برساء وسود ويجي آدم دقيسته آدم بر كل كان ساء وسود ويجي نلنا واحد مد منه لما محمود من مال لما كعبستنون إلهي كاهين لما جرت waxaan soo dhaweynay mudanahayga dadaab oo hadda raba kursiga inuu baneeyo maxamed daahiye ducaale maalin dhaweyd ma xasuusantihiin abdul kolkii annaga awliyahana aan soo dhaweynaynay waan dhaarinay sidii oo sharcigii loo dhaarinayay maxamed daahiye dhaarweeyta markii districtgii dadaab lagu dhawaaqay awliyahan way dhaariyeen sidii oo kale yaani bilad sharaf bay siiyeen war bahashu baan haynin moogi 10 sano uu soo shaqeeyay maxaa yeelay waxa la yiri waxaan noogu darnaa laba shay yaa noogu darnay saddex biyo koow nabadgelyo aan laba kibaan dhalaan saddexba waan ka faqi beelaali hada wiilal baa tafaxaydani oo mid ana buu leeyahay Ahmed Shita uu ka mid yahay Ahmed Shita ayuu gambarka haduu Ilaahay ku qaso raadka maxamed daahiye faataynaayo inta markaan ka gudbo waxaan leeyahay meesha qasadka loo imaaday waa wiil jiran Ilaahay caafimaad ha siiyo Ilaahay wiilka caafi laba raqood haday isku dhawaadaan ma wada fiicnaadaan ha maxsumuha hire waa mudanahayga dadaab waliba arrimo uu shalay ka hadlay baan ka hadli doonaa Ilaahay haduu yiraahdo mudanahayga lagdheera arrimo xasaasi oo shalay ka hadlay yaan rabaa inaan support gareeyo shalay arambay baa la sameeyay abaqa waxa iska lahaa warka abaqaylo maantana arambeyda waxay ka imaad warka abaqaylo da abaqaylo soo barakaysto abaqaylo barakaysan tahay marka annaga hadaan nahay abaqaylo waa inaan xurmad aan magaalada Gaars dadka jooga aan siino maxaa yeelay laba maalmood oo isku xigto in annaga qoraxda naloo istaago مسؤوليتي ودنك أسريينا أي نص بحان وأرن لقفانه وهي الدواء وهي عافمات على قادر كان كسوينا أنت ما كان كجدبه لما يهو أرن بكحهم يا رجال من برينته كنسلك أما الدولة دهوسة وكحهم هذا الكيكوال هي أنا 92 يعني كان صراحة فايس تشامبيون بحشنت سنة عبد القادر حاج الداهر أود كي جارس أقبلنا أو لقى عبصده محمود بروي حسين علينا ولا لا صومره أو يقدم بيان
يعني أنغو صدن يلح لله وعوليها يعوض يا عبد الله أنت أفرسن يعني كرسي كيرنا أو مختار علموي مختار علموي dadki joogay buu kamid yahay sharci markaan ku erinay labadoodii ma intay noo baadeen bariyeen hada calaalka ma dadka ugu calaalaysaan ma dadku u dagaalsiinaysaan awoodkiinni baad idinka garan laadiin hadaatiin ma barin annaga oo soddon oo kaanu ay tahay hadana oo wasiir kaanu Xuseen Macallin libaahi weynaabu fadhiyay محمود الديو ديبو فديه هباي كبا waxa liigu yeeray afmar orow mooshinka ninka keenayna anigu aha bari meesha waxmar saa loo fadhiya hadaan bari waan iscaasili baan ku yiri nin member aho 500 soo qaatay 500 oo kun waxa fiicnayd baarlamaanka kulligu iscaasilay in la dhaho maanta oo u banaanaado oo dhaqmo aniga marka malihi maxaad u fiijin weydeen ninkii malihi لكن على عالكنا ديدي أنو على إنسان شقدنا النهار كين إنسان ما ديدي معصوم عشان مغمري شقدين حنا النهار كين إنسان شعب بعنا وهذا صوت دورنا ما حفيز كين كوا هذا شان ما حد يشتري إنسان هذا هرمر بان كيني وحصل دفعله من تبع قبلني وحسن قبل اللي مليه نما في جرب له وأنا لقى عليه العشاء بقول غاتا وصلون معي وحاسيه ها ايش غادي يسكر وي وعقلوا يدين شيء دغيستاد ها بس دغيستيكن لينك على النوح على النوح ما قرنيسان يوها لندول ما انتابوا وحوقا قبر وقاعدين وري عبد الله ليه 10 سنه u dhashay gabadhu u yaray habeenka aqalka geysay oo labadoodu isku soo hareen yaa la wada hadlay hadal la adduunka waxa u fiican laba ruux oo nin u helin ninka cali dhuur la yiraahana saadogtii taariikh weyn buu Soomaalidu ku leeyahay nin ogaadeen oo gabiyay oo ninka aan ka gabiyin malo wuxuu heblaay reerkan ree cali aadan islaan yaro dhali buu u baahan yahay waxay tiri hebelo waa runtaay 16 ruuxbo reer bay leeyihiin oo waa nabada ugu weydagan yihiin aabiyi hooyadiina waa nabad waxay tiri cali dhuuxo waa runtaay reerkan ree cali aadan nabad buu u baahan yahay ugu hadda ogaadeenka gaarisow nabad buu ogaadeen u baahan yahay ogaada aniga kan sarafiijiya idan ma dhihin marna muxuu hadalka ma maqri laakiin waajibkiisa ninka inuu ka hadlaa la doonayaa aniga bisman baan xafiis baa ay furnaa waliga duqeymaan intaan u yeeray shir dhaxdii aan ku iri saasa jirta chiefka joogo muxuu ahaa chiefka joogo daanyeer kan balaanay joogo kan burraa joogo daaraajila midka joogiye kan liwooyo joogana sida dhiisiga ay ugu rabood gareeyeen bay igu soo rabood gareyn jireen mutu kama bana juwa kaasiyake shawriyake marka waxaan leeyahay ogaadeen jooga gaarsow horumar baan gaarnay waan barwaaqownay reerka loo taliyo nabadna loogu taliyo mudanaha naga aadan barra waxaan ka dooranay waxaan ka bariyay inaad mas'uuliyiintiina baarlamaanka ku jiro iyo gabanaha shanti intii aad meeshii aan jirnay muran buu ku dhamaaday intii nadiif uu ku jirayna muran buu ku dhamaaday kulma faa'iideyna dawladda maalinkii la yiri county baa laga dhigay oo nin walba wixiisa loo dhiibay inaan xisaabtano oo maalin walba aan meel dhisno soo sida ayada ma ahayn fuutaan ku fuutay sidaan u lahayn buu waqtiga dhamaaday mawduucaas asagayna hal bedelo labad iyo wada hadal hal lagu bedelo dadkana dad walaalaha laga dhigo
dhulkana dhibaatadiisa waxay jirtay ani magaaladan Gaarsi intaan joogay waxaan ka si meesha la dhaho hadda Boolariig iyo ilaa barabaraha 500 oo guri oo dad ku nool yahay subax taragta la mariyay dhulkii asaga wuxuuna ninna la siinin yaa dad iska qaybsaday haddana maanta wax bilowday maaha dhulka la iska qaadanayo dhibaatada hadda waxaan ka warqabaa dad aan Gaarsi u dhalanin nimankii isliid degan ee ninka yihiin aad ogtihiin hal nin maalin intuu imaaday 12 guri inuu gatay wallahi sidii reer Falastiin baa kullu dhulka la gadan doona meesha guuri doontaan aniga ma garanayo aniga markaa warkayga waxaan kaga bixi ogaadeen nabad buu u baahan yahay madaxdana tashi bay u baahan tahay laba kala adkaado maxsuuba iga raaleeho labada dibi haday looda ka dhasheen oo dibigaan ina haydar u dhalay kana ina haydhuba u dhalay oo labadaba looda ka soo dhaxbaxeen inta markay ka baxaan bay dagaal bilaabi siday u diriri kolkay looda labidho way isgarab kici midna daraftaas uu ka gali midna darafta hadhow bay isku dhici way ku soo galban weligood ma kala adkaadaan dibiga duurka laga soo gaday ama qoqsiga iyo midka looda ka dhashay laba jeer markay daraan midka saddexaad kii dibadda ka imaaday wuu carraabuu tagaa nin ogaadeen oo intuu dhasho mas'uul nin kale kama adkaanayo waxaan heshiiska ahayn oo deeqi male ogaadeenka Gaarsi jooga heshiis hal doono billahi tawfiiq aad iyo aad baa mahadsantihiin